bismillaahi raxmaani raxiim maanta waxaan joognaa aeroboortka degmada Galdogob Ugaas Axmed Airport oo si rasmi ah maanta shaqadii uga bilaabmatay saad arkaysaan waxa laga hayaa shaqada fayskeedii koowaad baa maanta ka bilowday oo ah in laga baneeyo dhirtii meeshii loo isticmaali lahaa aeroboortka dhammaan in dhirta laga baneeyo la nadiifiyo ka bacdiina loo gudbo shaqadii ku xigtay oo company-ga uu ka qaban lahaa waxaana la jooga qayb kamid ah injineeradii aeroboortkan wax ka qaban lahaa iyo qalabkii sidaad arkaysaan waxaan mahad iska leh Ilaahay subhanahu wa ta'ala noo suurta galiyay muddo badan ka bacdi inay maanta bilaabato hawsha aeroboortku si rasmi ah aan jecelahay inay ku soo gabagabowdo insha Allah ta'ala ilaa iyo bisha nagu soo aadan dhamaadkeeda hawshaan waa siday maanta u bilaabatay way socon doontaa iyadoo isku daba xigxigta waxaan rabaa inaan halkaan uga mahad celiyo cid kasta oo gacan ka geysatay oo ugu horeeyay wasiirka wasaaradda gaadiidka iyo duulista hawada mudane Durraan Axmed Faarax ee dawladda federaalka ah ee maamulka degmada Galdogob Cabdirqaadir Khaliif Xaashi iyo dhamaanba intii gacan ku lahayd dadaal badan iyo juhdi ku bixisay Ilaahay baa abaalkooda gudi kara waxaan rabaa dhamaantood inaan halkaan uga mahad celiyo Ilaahay waxaan ka rajaynaynaa inuu sida ugu wanaagsan oo ugu fiican noogu soo gabagabeeyo hawshaas maanta noo bilaabatay bulshada reer Galdogob waxaan ugu baaqayaa in gacan lagu siiyo cid kasta oo aeroboortkan gacan ka geysanaysa sida ugu dhow loola shaqeeyo